madasha lagu gurfeynayay nidaamka faldacwadeedka da'yartu ay galaan iyo sidii loogu leexin lahaa iyo tacadiyada ka dhanka jinsiga waxa ka qayb qaadanaya oo tababarka ka faa'iideysanayay xeer ilaaliyaal ka kala socda gobolada iyo deegaanada dalka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland mudane Xasan Axmed Aadan ayaa si qoto dheer uga warramay ahmiyadda kulan hawleedkan ugu fadhiyo hanaanka qorshaha horumarinta garsoorka iyo cadaaladda wuxuuna ka qayb qaatayaasha kula dardaarmay in duruusta ay tababarka ka bartaan ay ku dabaqaan shaqooyinka ay ka yimaadeen la isla saxo qaabka iyo nidaamka markay xadgudubyadu ay sameynayaan dhalinyaradu dambiyada la xidhiidha da'yarta in aynu si fiican dambiyadaasi u qeexno qaabka loo wadayo qaabka looga leexinayo muxuu ahaa dambiga in nidaamka la saxo wali waxa socda kororkii dambiyada la xidhiidhay kufsiga oo sare u socda tirakoobkan soconay sanadkii u dambeeyay 2015 iyo kii ka horeeyay wali waxa taagan dambiyada kufsiga ah gaar ahaan kuwa waliba wadarta loo galaana aad bay u badan yihiin dambiyadaasi bacdama ha kala duwanaadaan gobolada dalku hase yeeshee waxa weeyaan wali heerkiisu aad buu sareeyaa kufsiga taana waxaa la doonayaa bal in tababarkan uu siyaadiyo qaabka iyo nidaamka xafiiska xeerlaalintu uu ogo dacwadahaas siday u dhisan yihiin sida cadeymaha iyo ururintooda iyo waxaas oo dhan ay noqonayaan kuwo dhammaystiran amba kaabi kara in dambigaasi dhacay inuu qofkana galay dambigaas nidaamka procedureska ay u socdaan dacwadaha ciqaabta gaar ahaan maamulka uga socdaan ay muxuu ahaa xafiiska xeerlaalinta isku xidhkooda inay yihiin qaabkii nidaamkii loogu tababaray inay yihiinna waa in la hubiyaa oo la saxaa oo aynu dib u eegno koor xeer ilaaliyaha waxaa madasha ka hadlay Cabdixakiin wuxuuna ka warramay ujeedada tababarkan looga gol leeyahay iyo waxa uu ka tarayo shaqada xeer ilaalintu ay u hayso garsoorka dalka waxaan laakiin jeclaan lahaa inaynu kulankan labada cashin oo joogi doono in dhammaanteen aynu u dadaalo inaynu waqtiga siino inaynu si fiican uga qayb qaadano gaar ahaan qolooyinka ka yimid xafiiska Hargeysa waxaan jeclaan lahaa in shaqadii maskaxda ka saaraan haddii kale qofku shaqadii maskaxda ku hayo waxa laga yaabaa inaanu ujeedadii aynu halkan lahayn inaanu gaarin